ugu dambeyn madaxda immigration-ku waxay ka soo jawaabeen soo jeedinteennii waxaana tilaabo laga qaaday diyaaradda Ethiopia Airlines taasoo isbedel ku sameysay nidaamkii aragtida koowaad ee website-keeda yacni meeshii tiidka laga jaran jiray waxay xasuusteen maalin hore inaan la wadaago warbixin sheegaysa in diyaaradaha qaar ee dalka ka shaqeeya gaar ahaan diyaaraddan la yiraahdo Ethiopia Airlines aysan aqoonsanayn wax la yiraahdo Soomaaliya Mustafa ma ogtahay in diyaarado aan aqoonsanayn Soomaaliya wax la yiraahdo ay Soomaaliya ka shaqeeyaan ay waliba yihiin diyaaradaha ugu duulitaanka badan ama xataa gobolada u duula diyaarada international oo Soomaaliya wax la yiraahdo aan aqoonsanin inay ka shaqeeyaan wadanka moogta maadaama marka ay raadiso liiska wadamada u diiwaan gashan ama tigidhkooda laga jaran karo aysan ku jirin Soomaaliya marka aad joogto Muqdishona ay ku diiwaan gelinayso inaad joogto wadan la yiraahdo Somaliland ugu dambeyn soo jeedinteennii waa laga soo jawaabay madaxda immigration-ka ee ugu horeeyay Mustafa Dhuxul oo ma hore irba buudka la dulmaraya hadda waxa ku leeyahay raali ka nahay laakiin wali waxba noo dhiman wali waxba noo dhiman marka aad soo gasho interface-ka hore ama wajiga koowaad ee website-ka waa sax waxa saaran calanka Soomaaliya waxaana dareemaysaa inaad joogto meel la yiraahdo Soomaaliya laakiin marka aad fiiriso liiska wadamada u diiwaan gashan ama tirsiga ku jira wali waxa ku qoran magacii Somaliland waa sax wadankan waa la yiraahdaa Somaliland oo waa dhulkii Soomaaliyeed laakiin magaca caalamiga ah ee noogu diiwaan gashan UN-ka iyo sidoo kale hay'adaha caalamiga ah waa Soomaaliya marka waa in meeshaasna lagu soo bedelaa Soomaaliya oo liiskaas laga helaa magaca la yiraahdo Soomaaliya marka hadda calanka waa la bedelay oo waa arkaynaa waa u jeednaa soo jeedinteennii iyo hadalkeenina waa soo gaaray laakiin wali halkaan fara noogu duugan marka fursad kala siinayna ilaa isbuucba ha noqoto laakiin waa inay bedelaan magacan oo sida saxda ah wadankan ugu diiwaan gashan oo maanta baasaboorradana ku qoran oo ay dhikaaradana ku qoran oo Soomaali leedahay safaarad iyo sidoo kale tabasaldhigba ha noqotee magacaasna uu qoran waa in meesha ku soo qoraan madaxda immigration-kana waxaan rabnaa inaan idhaahno waa maasantihiin insha Allah hawl fiican ayaa qabateen waana tan awoodda warbaahinta iyo sidoo kale warbixinadu marka sida wanaagsan loo adeegsado ceebna ma ahan in madaxda la dhaliilo laakiin muhiimaddu waxa weeye in shaqadooda lagu dhaliilo waayo qofku marka shaqadiisa ku dhaliisho shaqadiisa ayuu wax ka bedel ka sameeynaya laakiin marka aad shaqsidiisa dhaliisho way adagtahay inuu shaqsidiisa ku bedel ku sameeyo yani qof inaad tiraahdo waxa Ilaahay ku abuuray ama dabeecadiisa ama shaqsidiisa ama reerkiisa ama qabiilkiisa hadii aad ku dhaliisho oo tiraahdo reer hebel ka dhalatay ama saasa tahay ama shaqsi hebel tahay qofkaasi kama ma bedeli karo shaqsidiisa laakiin marka aad shaqadiisa ku dhaliisho tiraahdo shaqada meeshaan ay ka qaldan tahay way sahlan tahay inuu bedelo shaqadiisa oo sidii suubaneed ama sidii quruxda badneed oo ka dhigo marka Mustafa Dhuxul iyo sidoo kale shaqaalaha immigration-ka iyo si guud waliba wasaaradda duulista iyo hawada agaasimayaasha sidoo kale wasiirka ku-xigeenada waxaan leenahay waa maasantihiin waan idinku bogaadinaynaa sida codkeenu idin soo gaarayo iyo sida wax uga bedelaysaan waxa anagu aan soo aragno anu hadaan nahay shacabkii waxa idin nahay indho iyo sidoo kale farihi tilmaamayay sheegayna meesha qalad ka jiro insha Allah inaguna kama daalayno inaan tilmaamno meel kasta oo qalad ka jiro ilaa wadankeenu uu noqdo wadanku ugu wanaagsan ama ugu quruxda badan ugu musuqmaasuqa yar ugu qaladaadka yar iyo sidoo kale wadanku ugu horeeyo dunida haddii aad ku isticmaasho wifi lambar UK ah Vobi wuxuu ku sahlayaa inaad si degdeg ah ammaan oo sahlan aad lacag u dirto qoysaskaaga Afrika ma jiro culays mana jiro waqti lumis Vobi si toos ah kaarkaaga UK lacag u dirso dal walbana dadkiisa dhisa marka lagu leeyahay ma ahan in wasiirka meesha la soo fariisiyay oo isagu wax qabanayo laakiin qofka shacabka kan wariyaha kan hadii la ku imahayo shiiqa kan injineerka qof kasta waxa laga rabaa inuu shaqada booskiisa ka qabsado insha Allah waan rajaynayaa qof kasta oo Soomaaliya ee arka wax qaldan inuusan ka aamusin una sheego Soomaalinimada iyo sidoo kale wadaninimada inay ku weynaato. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.